maayir ku-xigeenka degmada Salaxley Maxamuud Bedel Guulad iyo golaha deegaankaasi degmada Salaxley ayaa maanta si wada jir ah waxa ay u bilaabeen baleymastarka ay yeelanayso degmada Salaxley isla markaasina waxay baaq dheer u direen shacabkii lahaa dhulkaasi waxaana hadaladii maayir ku-xigeenka kamid ahaa hadaladan waxaanu dhameystiraynaa master balanka qabiyadii ka harsanayd intii hawlaha gudbargi dhaweyto ka tageen baan imika dhameystiraynaa annakoo shaqaalaha iyaga iyo cagaftayada iyo muruqayaga iyo maskaxdayada kaashanayna ayaanu damcnay inaanu dhammaystiro waxaan u sheegayaa dadweynihii dhulka ku lahaa ee cagaftu ka jeedhay Salaxley barigeeda inay la berito la soo diyaar garoobaan si uu qof walba wixiisii u helo hawshan lagu hogaaminay maayir ku-xigeenku saakay bilaabantay oo taariikhdu tahay 8 bishii 6 2025 insha Allah si khayr leh ayuu ku dhamaanaysaa hore waa tiin degmada loo qorsheeyay imankana waxa weeyaan intii qabyada ahayd baa dhamaystirayaa iyadoo la raacayo maamkii degmada loo dejiyay markii hore ee hawlaha guud iyo guriyada saako haytay bishii 8 bishii 6 2025 oo shaqada nagu hogaaminay maayir ku-xigeenka degmadu waxaanu bilownaa dhamaystirka qaybtii master balanka ee qabyada ahayd ee iyadoo la raacayo maamkii wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta marka qof kasta waxaanu ugu baaqaynaa inuu dhulkiisa iyo wixiisa yimaado oo uu ka warhayo sida shaqadu u socoto hawlu aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa anagoo shaqaalaha dawladda hoose maayir ku-xigeenka oo hawsha aan ku garab taaganahay waxaanu bilownay master balanka degmada Salaxley oo hore aan u qaadnay wadooyinkii main roadka ahaa saakana waxaanu bilownay wadooyinkii yaryar jarjaristii ilaa inta ka dhamaanaysana way soconaysaa insha Allah tacaala waxaanu ku rajaynaynaa inuu si dhaqso ah u dhamayno reer Salaxley waxaan leenahay cashuurta bixiya si la idinku shaqeeyo oo degmadu ay u samayso ay korukac dadka degmada reer Salaxley daneeyaasha waxaan leenahay la shaqeeya degmada cashuurteeda deegaankeeda qorsheynteeda waxaan leenahay soo dhawaada waan leenahay dadka degmada ku soo dhawaada si fiican u taageera dhaqaalaheeda iyo kabkeeda iyo hawlgalkeeda